madaxweynihii afraad ee Soomaaliya taariikhdiisa oo aan soo koobay ayaan halkan idinku hayaa daawadayaal aniguna waa Libax Barqiye Ali Mahdi Maxamed xilli lagu qiyaasay 1938 ilaa 1939 waxa uu ku dhashay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya waxbarashadiisii aasaasiga ahayd waxa uu ku qaatay magaalada Muqdisho isagoo markii dambe waxbarasho dheeraadi ah u tagay dalka Masar intii ay jirtay dawladii dhexe ee Soomaaliya waxa uu xubin ka noqday aqalka baarlamaanka markii ay burburtay dawladii dhexe 1991 waxa uu noqday madaxweynihii afraad ee Soomaaliya xilkaas waxa uu hayay intii u dhaxaysay 26 bishii January 1991 ilaa 3 January 1997 mar kale ayaa heshiis ka dhacay magaalada Qaahira loogu doortay xilka madaxweyne haddaba doorashadii ka dhacday dalka Djibouti 2000 ayaa lagaga adkaaday madaxweyne Ali Mahdi Maxamed waxaana bedelay Cabdiqaasim Salaad Xasan oo loo doortay madaxweynihii shanaad ee Soomaaliya Ali Mahdi Maxamed waxa uu xukunka qabsaday kadib markii isbaahays mucaarad ah oo hubaysan ay xilka ka tuureen madaxweynihii muddada dheer ka talinayay Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre hase yeeshee Ali Mahdi Maxamed uma aysan suuragelin in uu nidaamkii dawladnimo wada gaarsiiyo dalka oo dhan waxaanu ku soo beegmay xilli ay Soomaaliya lagu hala gashay dagaal sokeeye oo hubaysan intii uu madaxweynaha ahaa waxaa jiray dagaal loo yaqaanay 4 bilood leh oo dhexmaray ciidamadiisa iyo xoogag daacad u ahaa Maxamed Faarax Aydiid haddaba shircay dadaal u galeen beesha caalamku sanadkii 1991 laguna qabtay dalka Djibouti oo lagu damacsanaa in la isugu geeyo hogaamiyayaashii isku hayay talada Soomaaliya waqtiga waxaa ku gacan sayray General Aydiid oo aan ka qayb gelin shirkaasi beesha caalamka ayaa Ali Mahdi Maxamed markaas u aqoonsatay in uu yahay madaxweynaha Soomaaliya inkasta oo ay siyaasiyiin qaar ay ka soo horjeedeen go'aankaasi dalalkii markaa aqoonsaday waxaa ka mid ahaa Djibouti Masar Sacuudiga iyo Talyaaniga sanadkii 2000 waxaa Ali Mahdi mar kale ka qayb galay shir magaalada Carta ee dalka Djibouti ka dhacay hase ahaatee waxaa doorashada xilka madaxweynaha kaga guuleystay Cabdiqaasim Salaad Xasan oo horay wasiirka arrimaha gudaha uga soo noqday dawladda Soomaaliya haddaba madaxweyne Ali Mahdi Maxamed bishii November ee sanadkii 2020 ayuu mar si adag uga hadlay xaaladda Soomaaliya waxaanu sheegay in xilligan aan loo baahnayn in dagaal dib loogu laabto Allah u naxariistay ee 10 bishii Maarso 2021 ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala Nairobi madaxweynihii afraad ee dalka Soomaaliya